National Somali Air Force 1975 waa xilligii la aasaasay 1975 waa markii la aasaasay ciidanka cirka ee dalka Soomaaliya ee lahaayeen ciidamada cirka ee dalka Soomaaliya waxaa lagu soo tababaray dalka Russia. ciidamada cirka ee dalka Soomaaliya waxay iskugu jireen makaanig iyo duuliyayaal oo aad farsamadoodu u sareyso halka ay tababarka ka soo qaateen ay ahayd Russia inta ugu badan. waxaa kaloo jiray ciidamo kale oo lagu soo tababaray dalkaasi Talyaaniga iyo dalka Cuba. dhammaan waxay iskugu jireen khuburo dhanka hawada iyo farsamayaqaaniin farsamaysta diyaaradahooda ciladii ku timaada iyo duuliyaal intaba way iskugu jireen. kani waa mid ka mid ah duuliyaashii qaranka Soomaaliyeed oo iska hubinaya diyaaradiisa badqabkeeda. duuliyuhu waa inuu iska hubiyaa diyaaradda dhan walba badqabkeeda xagga shidaalka ama hubka ay sido ama cilado yaryar oo markaasi ku imaan kara ama la arki karo. inkastoo duuliyaha uu yahay mid aad xirfadiisa u sareyso duuliyaha marka uu soo hubiyo badqabka diyaaradda wuxuu saxiixayaa diyaaradda inay hawada geli karto iyo in kale. kanina waa mid ka mid ah duuliyaasha qaranka oo tababarkii maalinlaha ah ku guda jiro. haddana waxaa la hubinayaa duuliyayaasha inta aysan hawada gelin caafimaadkooda iyo badqabkooda. waa in la hubiyaa markasta xaaladahooda si dhow loola socdaa inta aysan hawada gelin duuliyayaashu maalin walba ay tababar leeyihiin. ciidamada cirka ee dalka Soomaaliya ma aysan ahayn kuwa la dhayalsan karo balse waxay ahaayeen kuwa ku tababar ah ciidamadii midowga Sovieti ee markaasi ahaa ciidanka ugu quwadda weyn adduunka. haatan cutubyo ka tirsan ciidanka cirka ee dalka Soomaaliya iyo injineeradooda oo salaan sharaf ka qaadan doona taliyahooda.
salaan sharaf kadib duuliyayaashu waxay bilaabi doonaan tababaradoodii maalinlaha ahaa ee had iyo jeer ay ku tababaran jireen dhulkooda hooyo iyo diyaaradahooda qaranka. Markaani 5 duuliye ayaa ku soo bandhigi doona khibradooda iyo waxyaabihii ay ka soo barteen dalalka Russia, Italy iyo Cuba. waxaan soo gudbinaynaa inay diyuuradihii nabadgelyo ay maaragtay ku wada fariisteen wax dhibaato aan ma imaanin waxaan rajaynaynaa maaragtay inay noqoto sidaas oo kale
maalin walbo ama maalinta soo socota wax cillada hoosaasoo dhashay ma jiraan wixii kale oo adinka aan ka sugayno awaamiraha ayaanu maaragtay aan xaggiina uga sugayna wixii kalena waxaan usoo gudbinaynaa maaragtay